wanaagsan daawadayaal halkan waa shabakada walbanaadir ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee idin hayso qodobada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah mas'uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Cadaadad ee gobolka Galgaduud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo isna ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaankaasi oo laga warsugay go'aanka ka qaadanayaan xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan maamulkaasi Galmudug kooxda macaamiisleeda ka dagaalanta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo sheegay in ka badan 30 ruux ay ka soo furteen xarakada al-shabaab ganacsatada Kenya oo sheegay in laga adkaado suuqyada qaadka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf oo sheegay in doorashada maamulkaasi ay dhici doonto 4 Julaay ee qorsheysay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya sheeganaya ka dhici doonto magaalada Cadaadad ee gobolka Galgaduud isagoo dhanka kalena ku dhawaaqay in heshiiskii al-sunna iyo maamulka Galmudug uu buray sidoo kalena sheegay in midowga iyo khilaafkii ka dhex taagnaa dowladda dhexe iyo maamulkaasi Galmudug uu soo dhamaaday wararka dibadda aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga mucaaradka dalkaasi Turkiga oo markale ku guuleystay doorashada ku-xigeenka hay'adda ka dhacday magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga intaas waxay qodobadii ugu waaweyn warka shabakada walbanaadir ee dinayso kuwii ugu waaweyn waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha 6 sanada 2019 bisha dhawaada qodobadii oo intii hore ka faahfaahsan aan ku bilownay magaalada Cadaadad ee xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay gaaraan wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya wafdigan ayaana ku wajahan magaalada Cadaadad waxay u badiyeen xildhibaano ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi oo deegaan daarashadoodu ay tahay xildhibaanadan ee laga soo tusay Cadaadad ayaa waxaa la filayaa in ay gaaraan magaaladaasi Cadaadad halkaasi oo sidoo kalena uu ku soo wajahan yahay madaxweynaha maamulkaasi Galmudug kaasi oo shalay gelinkii dambe ka soo baxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud xildhibaanadan tagaya Cadaadad ayaa waxay u tagayaan sida la sheegay xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanada maamulkaasi Galmudug waxaana suurtagal ah in wafdigan ay kulamo la qaataan madaxweynaha Galmudug oo haatan ku soo wajahan isna magaaladaasi Cadaadad wafdigan ayaa magaalada Cadaadad kula kulmi doona waxgaradka halkaasi ku dhaqan iyo mas'uuliyiinta ka tirsan Galmudug lamana oga wafdigan inuu tagayo Cadaadad xal doonida iyo waliba xiisadda ka aloosan deegaanada maamulkaasi Galmudug magaalada Cadaadad ayaa waxaa isku diyaarinaysaa martigelinta doorashada shakiga uu ku jira ee baarlamaanka iyo waliba hoggaanka Galmudug hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya waxay shaacisay in doorashadu ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ayaa isna sheegay in doorashadu ay ka qabsoomi doonto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana ay isku waafaqeen wasaaradda iyo waliba madaxa xukuumadda in ay ka dhici doonto doorashada maamulkaasi Galmudug xarunta gobolka Galgaduud aana caasimadda maamulkaasi Galmudug balse taasi mid ka duwan waxa muujiyay madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf isagoona sheegay in doorashada maamulkaasi Galmudug ay dhici doonto waqtiga ay qorsheysay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya 4 Julaay ana ku beegan ee nagu soo aadan iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan dhankalena waxa uu sheegay in khilaafkii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo waliba maamulka Galmudug uu soo ilaaday isagoona ku dhawaaqay in heshiiskii al-sunna iyo waliba maamulka Galmudugna uu buray sida lagu sheegay warqad qoraal oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xiisadan ka aloosan deegaanada maamulkaasi Galmudug kana kooxda macaamiisleeda ee shabaab la dagaalanta ayaa sheegay in dagaal ay la galeen xarakada al-shabaab ay ka sii daayeen tiro dad ah oo al-shabaab ku ururiyeen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan hogaamiye ka tirsan kooxdaasi macaamiisleeda ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen saldhig xarakada al-shabaab ay tuulo hoos tagtay degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan ay ku lahaayeen isla markaasina wuxuu sheegay in halkaasi ka soo badbaadiyeen maxaabiis fara badan kuwaas oo u haysteen xarakada al-shabaab wuxuu sheegay in dagaal uu ka dhacay goobtaasi kana soo furteen maxaabiistaasi mid kamid ah horjoogayaashaasi oo la hadlay qaar kamid ah idaacadaha maxalliga ah ee Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in ka badan 30 ruux inay ka sii daayeen xabsi ay al-shabaab ku xireen duleedka Buulo Barde isla markaasina ay badbaadiyeen dadkaasi sida uu sheegay waxa sidoo kale uu sheegay in talabadaasi ay ka dambeysay kadib markii cabasho ay ka soo gaadhay dadka shacabka ah iyo beeraleyda ku dhaqan gobolka Hiiraan isla markaasina ay weerarkaasi ku qaadeen saldhigga xarakada al-shabaab ay ku lahaayeen duleedka magaalada Buulo Barde marka laga yimaado sheegashada kooxda macaamiisleeda ah ma jirto wax war oo ka soo baxay dhankooda xarakada al-shabaab oo ku aadan in kooxda macaamiisleedu ay weerar ku qaadeen saldhig iyo xabsi ay ku lahaayeen duleedka Buulo Barde halkaasi way maxaabiis badan kulli waxa daawanaysan wararka shabakada walbanaadir markana maamulka Galmudug ayaa waxa uu wajahaya xaalad siyaasadeed oo murugsan waxaana laba garab u kala go'an maamulkaasi Galmudug hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Cali Geelle Xaaf iyo waliba garabka al-sunna oo isku garab ah mudooyinkii la soo dhaafay ayaa waxay haatan yihiin laba
garab. Madaxweyne Xaaf oo muddooyinkii u dambeeyay saldhig ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa shalay wuxuu galinkii dambe boorsooyinkiisa ka soo xirxidhay magaaladaasi isagoona safar dhulka ah soo galay oo soo baxay magaalada Gaalkacyo sida la sheegay iyo Cadaado ayna u badan tahay inuu halkaasi uu fadhi ka dhigan doono. Magaalada Cadaado ayaa muddooyinkii dambe waxaa xarun u ahayd garabka kamid ah maamulkaasi Galmudug kuwaasi oo hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Carabi iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Galmudug Cali Gacal Casar. sidoo kalena haatan waxaa iyagana ku wajahan magaaladaasi xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa isna sheegay inuu halkaasi buuqan doono tagna doono magaalada Cadaado isagoona sheegay in doorashada maamulka Galmudug ay magaalada Cadaado ay ka dhici doonto sida uu sheegay. dhanka kalena madaxa xukuumaddaasi iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa iyaguna isku raacay in doorashadu ay ka qabsoomi doonto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. waxaana wali isbedelkan siyaasadeed ee ku soo kordhay maamulka Galmudug ka hadlin Cali Gacal Casar iyo Maxamed Xaashi Carabi oo ah gudoomiyaha baarlamaankaasi iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka maamulkaasi Galmudug lamana uga go'aanka ay ka qaadan doonaan mas'uuliyiintan sugnayd magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud kuwaasi oo laba garab u qaybsamaa markii hore balse wali waxaa laga warsugayaa go'aanka iyo waliba waxay ka qaadan doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo waliba gudoomiyaha baarlamaankaasi maamulkaasi Galmudug ee ku aadan xiisadan soo kala dhex gashay madaxii xukuumadda Galmudug iyo waliba madaxweynaha maamulkaasi Galmudug. mudanayaashan ayaana hore waxay ugu eedeyn jireen madaxweynaha Galmudug in uu la safto al-sunna wal jamaa iyagoona ku eedeeyay in madaxweynaha maamulka Galmudug ay wateen koox yar oo sida ay u dhigaan hadal marar badan oo ay warbaahinta ka hadlay. xubno u dhow labada mas'uul ayaa noo sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casar uu tagayo magaalada Cadaado oo muddo xarun u ahayd halkaasi oo ay ka cadeyn doonaan go'aanka iyo waliba mowqifka ay ka qaadanayaan siyaasadan haatan ka taagan maamulka Galmudug. dhanka kalena dadka siyaasadda indha-indheeya ayaa waxay aaminsan yihiin in masraxa siyaasadda ee maamulkaasi Galmudug aysan mar kale kasoo muuqan doonin Xaaf iyo waliba madaxweyne ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabi iyo gudoomiyaha baarlamaankaasi Galmudug Cali Gacal Casar kuwaasi oo 4 sano ee la soo dhaafay ku dhameystay waqtigooda khilaaf joogto ah. dowladda Soomaaliya ayaa haatan waxay hagaysaa doorashada lagu wada inay ka qabsanto maamulka Galmudug horaanta bishan soo socota taasi oo ka dhici doonta magaalada Dhuusamareeb siday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya sheegtay balse garabka Cadaado ayaana wali siyaasadooda iyo waliba go'aanka ay ka qaadan doonaan halka ay doorashadu ka dhici doonto cadeyn mowqifkooda ayaana laga warsugi doonaa halka madaxweynaha uu cadeeyay maamulkaasi inay ka dhici doonto magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud balse ma caddo wali halka ay iskugu biishban doonto ka dhici doonto doorashada hoggaanka maamulkaasi Galmudug iyo waliba baarlamaanka maamulkaasi Galmudug. waxaana ka dhiman muddo isbuuca xilliga ay qorshaysay xukuumadda Soomaaliya inay qoobsanto doorashadaasi. wali waxaa daawanaysan wararka shabakada Hol Banaadir qaybaha dhexe wararkana waa la socotaan daawayaal xalan kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana wadooyinka magaaladaasi la dhigay ciidamo fara badan oo ku howlan xaqiijinta amniga wafdiga ku wajahan magaaladaasi. shalay ayaa galinkii dambe waxaa gaadhay magaalada Dhuusamareeb wafdi hordhac u ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee la filayo inay gaaraan magaaladaasi. waxaana horay magaaladaasi ugu sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaana tagi doona magaalada Dhuusamareeb waxaana imaanaya tagitaankan ra'iisul wasaaraha kadib markii dowladda ay ku guuleysatay in ay heshiisiiso kooxda al-sunna iyo waliba sidoo kale qorshihii Xaaf ee ahaa in muddada kordhinta iyo waliba muddaxileedkiisu uusan ku ekaan waqtigan kaasi oo marar badan ku adkeysanayay in doorashada xilli waqtiyeedkiisu ay ku egtay 2021 waqtigaasi oo uu sheegay inay ku egtay xilligii doorashadiisa ahayd balse taasi waxaan dhag jala qusin dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo marar badan ku celsin doorashada Galmudug ay dhici doonto xilliga la qorsheeyay kuna egtahay bishan Julaay horaanteeda. waxayna u muuqataa ugu dambeyn in xukuumadda Soomaaliya ay ku guuleysatay taatikadii iyo waliba shaxdii ay u degtay madaxweynaha maamulkaasi Galmudug iyadoona dadka siyaasadda falanqeeya ay aaminsan yihiin in ay shax cusub iyo waliba qorshe cusub ay u degtay Axmed Ducaale Geelle Xaaf. dadka inta badan waxay aaminsanayeen inaysan dhici karin ama aysan fududayn in siyaasadda maamulkaasi Galmudug uu hogaamiyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba madaxa xukuumadda Galmudug ee ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb inay adag tahay in la kala diro lana kala dhaxgalo ayagoo marar badan si wada jira uga hadlay Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba madaxa xukuumaddaasina waxay sheegeen in doorashadoodu
ay ka bilaabanayso xilligii la heshiisiyay labada maamul ee Al-Sunna iyo waliba maamulka Galmudug ayagoona saaxiib dhow isku ahaa ayaa haatan waxaa burburay heshiiskii iyo waliba saaxiibtinimadii muddada halka sano iyo waliba waxa la jiray ay soo wadeen Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba madaxa xukuumadda maamulkaasi Galmudug Maxamed Shaakir waxayna u muuqataa in la kala dhantaalay labadooda kala saartayna xukuumadda Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa horaantan xawaaday magaalada Dhuusamareeb waxaana halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay madaxda Galmudug gaar ahaan madaxa Al-Sunna iyo waliba madaxa xukuumadda Galmudug asagoo madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu diiday inuu kulamo la qaato madaxda ka socota dowladda Soomaaliya balse ugu dambeyn waxa u muuqataa in xukuumaddu ay ku guuleysatay taatikadii iyo waliba shaxdii waxaana la aaminsan yahay in ay dhantaashay go'aankii Axmed Ducaale Geelle Xaaf ee ahaa inaysan doorasho dhici doonin markii xukuumaddu ay si gooni ah ula hadashay madaxa xukuumadda iyo waliba madaxa Al-Sunna wal Jamaaca iyadoo horey madaxda Galmudug ee ku sugan cadaadana ay ku adkeysanayeen in doorashadu waqtigeeda dhici doonto taasi oo ah markana ganacsatada qaadka Kenya ee suuqyada cusub oo ganacsi u raadinaya qaadkooda ayaa sheegay in dalalka Djibouti iyo Mozambique kadib markii ay sheegeen in ganacsatada qaadka Itoobiya ay la wareegeen suuqyada Soomaaliya ay uga raadinayaan dalalkaasi gudoomiyaha guddiga ganacsiga qaadka Kenya ayaa warqad qoraal ah u diray wasaaradda dibadda dalkaasi Kenya warqadaasi ayuu ku codsaday in dowladda Kenya ay suuq cusub uga shaqeyn lahayd sidii suuq warqadaasi ayuu ku codsaday in dowladda Kenya ay ka shaqeyso sidii suuq cusub oo qaadka ah loogu heli lahaa ganacsatada qaadka dalkaasi Kenya dalalka Afrikana loogu heli lahaa sida uu sheegay suuqii ugu weynaa ee Soomaaliya ayuu sheegay inay buuxiyaan ganacsatada qaadka ugu dambeynna daawadayaal waxaa kursiga madaxtinimada ee magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ku guuleystay xisbiga mucaaradka dalkaasi waxaana ku guuleystay ninka ka socda xisbiga mucaaradka dalkaasi isagoona ka guuleystay ninkii u sharaxnaa xilka ee ka socday xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Turkiga daawada hadii aad ku cusubtahay channelkan subscribe ku dhigana like sar mahadsanid